عقل عمر عثمان كميدا عقاش dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa waxa ugu horeyn jawaab kulul ka bixiyay hadallada ilqaafa oo ka soo yeedhay Sultan Saleebaan Boqor Cismaan oo soo farageliyay arrimaha tabashooyinka gobolada Awdal iyo Salal Caqil ko jawaab kulul ka bixinaya uu yiri waxaan doonayaa inaan ka hadlo maanta nin la yiraahdo ama isku sheegay Sultan Saleebaan Sultan Boqor oo aan magaciisuna caadi ahayn hadalkiisuna caadi ahayn fikirkiisuna aanu wax caadi ahayn ninkaasi wuxuu ka hadlay dhowr arrimood oo uu yiri beesha dhaxaa tacabkeedii la cunaayo dhiigeedii baa la cunaa ka hadlay wuxuu kaloo ka hadlay madaxweynihii hore Daahir Rayaal Kaahin wuxuu kaloo ka hadlay ugaaska beelaha Gadabuursi intaaba uu ka hadlay isagoo si aan faham lahayn ama aan garasho lahayn uga hadlay arinta baan doonayaa inaan bal wax ka idhaahdo waxaan doonayaa inaan dadka gobolada galbeed ka soo jeeday aqoonta leh ama salaadiinta leh ama siyaasiyiintii si aanay uga hadalo aanay ninka isku khasaarin baan anigu si degdeg uga soo boobay saakoon hadalka u soo dhigaya horta ninka markaan haybtiisii raacay ee aan tuhooyday ee aan daba galay wax aad u yaqaan haybtiisii waan weynay waxana lagu yiri ninkaasi hadaanu ahayn nin ama kaari ahaan jiray ama dadka wax qaad ayuu ahaan jiray la yiri dadka ugu hayb dhaway sidaas yiraahdo sida darteed laakiin mushkilada jirta imiga saxaafadii baa waxay noqotay wax cid walba soo gasho waxaan u doonay ama waa loo soo dhiibay ama isaguba ha ka ahaatee arrinkiisa ninka waxaan ku qiyaasay bari baa waxa jirtay nin jaahila dabeetana ninkii jaahilkii wuxuu arkay nin wax akhriyaya oo muraayad xidhan dabeetana wuxuu doonay inuu isna muraayad intuu iibsado wax akhriyo dukaan muraayadaha lagu iibinayo tagay wuxuu yiri war bal muraayada iga iibi muraayad baa loo dhiibo uu gashaday markuu gashaday buu yiri haddana waraaqda ay dhiibo waraaqdii buu ku eegay wuxuu yiri tan iga bedel uu ka bedelo tukal uu dhiibo haddana waraaqdii buu ku eego tukal uu ku bedelay afar muraayadood markuu qaatay buu ninkii muraayadaha iibinayay ku yiri waar uma baahnid muraayade waxaad u baahan tahay waxbarasho marka ninkani wuxuu arkay nin koofiyad sita oo muraayad sita oo cumaamad sita oo saxaafadii hor joogto hadlay wuxuu mooday marka in saxaafada ay ka hadlo koofiyada iyo cumaamada iyo muraayadu inay hadisho mooday ma hadlaan muraayada iyo cumaamadu waxaad u baahan tahay aqli iyo garashaad u baahan tahay takale mushkilada Soomaalilandnimadu keentay intii ay jirtay barigii intaan Soomaalilandnimadu jirin dadku xad bay kala lahaayeen wuxuu yiri nin kacaankii siyaad bare xisbigii hantiwada galooran jiray ayaa bari aan ka dhageystay idaacada Muqdisho nin PR oo ka hadlayo kacaanka amaanayo kacaanka horumarku gaaray iyo dadka sidoo u dhisay iyo habkooda aad buu dadka ayuu amaanay wuxuu yiri waxa calaamad u ah in kacaanku dadka hore u mariyay heblaayo saraakic buu gabadh halka fadhiday way markaasuu yiri maxaad ahaan jirtay xisbi kacaanka ka hor maxaad ahaan jirtay waxay tiri sharmuudaan ahaan jiray imigana maxaa tahay gudoomiyaha xisbiga degmada hawlada wadaag baan ahay bay tiri imiga Soomaaliland waxaan ninkani muxuu ahaan jiray marka la weydiiyo tuug buu ahaan jiray la yiri war maxaad ahaan jirtay waxaan u maleynayaa ninkani tuug buu ahaan jiray maanta maxaa tahay waxa tahay Sultan baad sheeganaysaa marka horumarka iyo mushkilada Soomaalilandnimadu ay dadka ku keentay horta shakhsiyadda qofkaas sidaas kama foga intaana u sii dhaafi maayo ninkaasi nin beel lagu canaanto beel heblaaya sidaa tirina ma aho beesha anagu beesha dhaxa kuna canaanamayno kuna caaymayno shakhsiyadiisa baan u dhigayaa anigu arrinkiisa marka laga eegay wuxuu yiri waxayagii baa la cunay oo beesha dhaxa tacabkeedii la cunay oo maxaygeedii la cunay hadee beelaha beesha dhaxe waxay noqotay SNM bay la soo gashay waxay la soo gashay tacabkay sheegaysaana dhagar baa hayd kulkay soo gashay dhagar iyadoo dhagaraysan bay SNM timiday wadanka hadee markay timidayna dadku weerar iyo difaac bay kala ahaayeen waxay ahayd dhagartii cidii wax dhagraysay qarankii Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed oo dawladda ayay SNM weerartay dabadeetana markay weerartay dadka darafiyada beelaha darafiyaduna difaac bay haayeen marka xagga sharciga laga eegana cidda wax difaacaysa nafteeda difaacaysa iyo cidda wax soo weeraraysa waxa ka xalaalsan cidda nafteeda difaacaysa wixii aad la soo gasheen oo dhagar hoo xaaraana iyo difaac iyagii oo xalaala baynu isula nimid markaasaan idin xalaalaynay xaaraantiini markaasaad leedahay waa nala cunaya macquulnimadaada eeg
yacni waxaad ku garan kartaa in SNMtu aanay xaaladeedu hagaagsanayn waxna aanay wadi karin markii Burco la isku yimid 2 sano loo dhiibay maxaa dhacay 2 sano SNMta loo dhiibay maad garanaysaa wixii dhacay Burco weedkii birta iskaga aslay sheekh waad ogeyd wixii idin kala gaari berbera waad ogeyd dhiigii dhacay dagaalkii toon iyo hargeysa waad ogeyd intaan anaga idin kala dhacaranay Soomaad garan intaasi waxay wax u sameyn weyday ay u hagaagi weydna waxa weey maamulkeedaan hayn karin oo dad dhagaraysa baad haydin Soomaad garan oo dhagarta mushkiladan li laakiin anagu markaynu isku nimidee beelaha darafiyadu yimaadeen xalaalnimadii iyo xaaraantii markii yimaadeen xalaashii baa ka badato markaas aynu sidaa ummad ku noqonay war waxaan ad ku tacabteed sheegaysaa de tacabku waa dhagare wax kala ma sameeyay beerana ma sameeyay baamishara Soomaad qod inta markaan ka gudbo waxaad garanaysaa 2 sano ee SNMtu dhiigii dhacay waxaad kala wad garanaysaa xisbigii SNMtu u midowday ee Siilaay madaxda ka ahaa ee Muuse ku xigeen ka ahaa ee Cabdiraxmaan Saylici madaxweyne ku xigeen Cabdiraxmaan Cali madaxweyne ku xigeen ka ahaa SNM oo goombahay doorashada markay soo gashay waatii haan dabala noqotay qof weeyday markii xalaashii Cabdiraxmaan Saylici kulmiye la galayna 2 goor buu guuleystay taasi waa xalaalnimada weey waxaan idin sheegayaa xisbiga kulmiye wataa imiga 2 sano 2 goor waa ka Saylici ka dhamaaday hadii mar dambe xisbiga kulmiye oo wada SNMhi aw soo baxo aniga waliga waxba ay weydiin waxa la wax ka jira ma jiro hadii aan inta ka gudbo oo waxaad ku soo tacabteen waxa uu yahay aan idin sheegana de Burco way socon weyday sheekadu markii la geeyay gogosha boorama la keenay bay Soomaaliyaanimadu hagaagto sidii aan u raray wataa u raran maanta aan sacna xagan وحراشة وي وجوش حراشة وي وحين وحكوناهي حراشة هي حاران تاس كنت ترتيبو دقرتي أتكشين أنتوا الله إنك دافعي بوتاية أقولوا تاني بان دولة كنا والدولة نمدا ينود داي هدي أنو كب حنا وحي كل حران تاي شريتان كسومال لان يحلال نمدا يدو بيلها الدرفية دورين تاي وشران هدي إمي كب حان أوي أرور تاي دهان وأنا كب حنا وحي نقولنا ساب جبهات بين نقولنا ساب أدو كنا جبهات وحبك بقى adduunkana jabhad waxba kama ahe wataa imiga ictiraafkii yaani xabashida Soomaalida diidasay in la yidin dilay iyo inaad wax dishaan aan iyadu kala jeclayn ma ahe caalamka cid kale oo idin garanaysan ma jirto markaaynu ka eegno xagga daahirayaalana daahirayaale horta ayaan dareebe tahayba inaad adigu la hadasho ما بقرناش داير يوم ما تقعنا ما بقرناش يعني قفك بروفيسور كي وراقده وقراء دختر كي قفك أولها كبرت ما آخري كرو يعني فرت الظاهر رجال ما آخري كرتد بعده كمان الجواب كرتد وقالتنا مورن كرتد واسعنا مورن كرتد عقودتين أطلعين أدبان وقحومين الظاهر رجال سوقاته برينو كاحجين وقلبيت كاحجين ما قال قرنسيد ما تبيش وجو يسدا وجاي ما قرن كرتدو ده سبب تيت الميت إن لكن مركان يعني وحو كتجي محمد حاج إبراهيم قال ظاهر رجال تان كاجش جاي محمد حاج إبراهيم عقال وحو كتجي دولة الصومال لانو بلا سلف هو اللي ريحه هو تشوبه السجع عياس عنده سمية أو سلف سمية أو تاجر سمية وإحنا تقرنا سهل كعالم كجي أقل كإنجليز كإلور هولس كلا يداهدو أو أن أدون كأفريقيان كلبنان مون أي كلام نكى صدحات بنقضي نكى حيل سلاسل أورنجري يوم مدلة يداه رجال كهذلي ولين الناس سلام هو هالك قاعد مجرى مشرو لكن حقيقة ده وسكوش شغله لندن بوتجي سيلايو وحتجي شركة سومالي دوتجي مو سنة وحتجي جبوتي أو شركة سومالي دوتجي أنت إنك شيء يسموه ما يتجي هدي أو سيد شوق لهانا اعتراف بعد الهابة لكن الدون كان ولي كده عندنا ورثنا ما هي ضدك سومال لان الورثة بقى هاي اعتراف كان نصيبي وأنا قلنا نقول حنا هذا بيرها طرف يدو كبحان عندنا في جاه شهر سيسن ما يبيش ده عادي عاد بان وقحهم هاي إن عادي خاصو كل لقو سود دايو يعني وحولي نبى نعلم داير الورثة وقاسدي قد بورسجاها أيجي نمن عين كاغا سو كله الدونين عبيان دبيتنا وحولي إسلام دورتي ستة وتجينا وحيدين markuu cilmi dheer bari doodayo waxaad ku tiraahdaa ninka cilmi dheer ugaasgihi islaanta jirkaygaale iyo habeen walba uu soo gudaa dabeetana markuu xanaaqo ayaanu anaguna dilibay yiraahdeen cilmi dheer uu gorto wuxuu yiri war cilmi dheer ay soo guday war ha ka dhigatay shirkay noo wada bud imiga ninkan daahir baa sida yiri war ha ka dhigtay isaga sidaasaan isagana ku dhaaf ugaaskan sheegaya
ugaaskani waa ugaaskii 19aad wey marka 19 ugaas la tiriyana hadii la isku soo celiyo mid 100 jiray iyo mid 80 jiray iyo mid 60 jiray iyo mid 70 jiray marka la isku soo daro hadii 80 laga soo qaado 19 ka ugaas waxay jireen 1520 sano jireen 1520 sano Soomaali cid santalad lahayd ma bay jirinba ma garan kartaan kama hadli kartaan سمعت قرن يعني وحو دافع حلقي علين تو دافع حلقي اللي ودافعه بلدي علين الآن توهيس هسه بلد الموبيل كم يدان مغلا هذا بقول بلدي علين الآن توهيس عيد علين كرتو عالم كجوك ده ما بجرب ده أدبان وتاجر سنة إنه ظاهر رجال ثلاثة وسوج شيء مدحويني هوري إنه مدحوينها سومال لان حال بحيو أدبان وتاجر سنة إن سجال سجال لو درنا صاحبيتها إن يعني أضياش مصبحي أو ضدك أسبوع هينا ثلاثة مدحوينه waan ku amaanana markii madaxweynaha daahir riyaale oo isagu qaybta hayna tolku ayuu qadiyo gobba sidaas yaani qofka gobtay loo soo hoydo waa inuu u qadaa dadka kale laakiin gobba wax qaatay idinku inaad sidii gobonimada u talisaan oo idina dadka kale wax siisaan bay hayday inaad tiraadaan anaga wada cunana oo waliba yaana lagu arkin hadii taasi doqoniimo ay ku tahay sidaas baan ku soo goobaya u dhaafi maayo halka arrinkaasi beelaha kale ma gaaro ninkaas uu geebiyahay cidii soo dirtay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.